magaceedu yahay Salawaan Maxamed Cilmi ahna gudoomiyaha jaamacadda Bugema University ee dalka Uganda. Xilka qaadis isku xiraha midowga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. Annagoo ah midowga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxa uu siinaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ururka SSU iyo safaaradda dalka Uganda inaan ka qaadno xilka isku xiraha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda mudane Bakar Cali uu ahaan doono gudoomiye jaamacad kaliya jaamacadiisa KIU. sabaha ugu qaadna waxa kamid ah number 1 inuusan gudoomiyaasha la soo wadaagin wax og ah sidoo kale ururka ardayda Soomaaliyeed SSU iyo safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. number 2 inuu u codkeen u adeegsaday waxyaabo badan uusan la soo socodsiin. 3 inuu soo ixtiraamin gudoomiyaasha isla markaana uu la tashan gudoomiyaasha. 4 inuu faraha la galay shaqooyin aan loo igman kuwii loo igmadana uu siyaasadeeyay qaarna qabyaaladeeyay. ugu dambeyn waxaan cadeynaynaa inuu Master Bakar ku fashilmay xilkii isku xiraha ardayda iyo gudoomiyaasha jaamacadaha ee dalka Uganda. dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxa la socodsiinaynaa inaan xilkii isku xiraha gudoominimo ka qaadnay Bakar Cali maanta ay tahay taariikhdu 23 bishii 6 2020. waxaana jira codka ugu qaadnay waa cod ah 90%. waxaana haynaa lifaaq gudoomiyaasha saxiixay maantana soo xaadiray meeshii loogu qaadayo codka waana saxiix dhamaantii waana mahadsantiin la socod wanaagsan. ayga waa Cali Cabdullaahi Maxamuud Cali Sugaal ahna gudoomiyaha jaamacadda Imbarara University of Science and Technology. waxaan meeshan ka cadeynayaa annagoo ah midowga gudoomiyaasha jaamacadaha waddanka Uganda in xiriir aad iyo aad u wanaagsan uu kala dhaxeeyo haddaan nahay midowga gudoomiyaasha SSU iyo safaaradda dhexdeena inuu xiriir aad u wanaagsan yaalo. muddana soo wada shaqeynay waxyaabo badan ka soo shaqeynay samata bixinta horumarinta iyo badbaadinta ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Uganda. hore waxaan uga shaqeynay in aan dhimno lacagaha ardayda laga qaado si verification lagu sameeyo shahaadooyinkooda 50% hoos u dhignay. waxaan ku tilmaamayaa wax kama jiraan arinta ah in gudoomiyaasha iyo ardayda iyo safaaradda xiriirkooda uu soo wanaagsaneen. arintaas waa arin aan waxba ka jirin. safaaradda waa safaaradeeni waa astaantii qaranka waa meeshii namatalaysay waa safaaradda waa tii namatalaysay haddaan nahay Soomaalida waddanka Uganda. xiriir fiican naga dhaxeeyo waxaana aaminsanahay haddaan wada soconno oo aan iskaashanayno inaan horumar gaari karno. ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Uganda waxaan farayaa inay midnimadooda ilaashadaan inaan arrimahooda la siyaasadeynin la qabyaaladeynin mid la ahaado si horumar loo gaaro. laakiin marnaba raali kama nihin qof aan dadkii mataqaana uu hogaaminayay ama uu xilka u hayay asagoo ku hadlaya magacooda laakiin sheegaya wax aysan ayaga aaminsaneen oo aan ka tarjumaynin aaraadooda. marka waxaan farayaa dhammaan hogaamiyaasha ardayda iyo hogaamiyaasha guud ee waddanka Uganda in ay matalaan dadka ay mataqaana xilka u hayaan ra'yigoodana ka hadlaan oo aysan isticmaalin xilkooda ra'yi personal ah ama personal interest ay soo adeegsanin. aad iyo aad u mahadsantiin. waa Axmed Bashiir Maxamuud Axmed Bashiir Dooxajoog ahna gudoomiyaha jaamacadda Clark International University. waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka dhaho arintan. waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshooyinka ku dhaqan dalka Uganda iyo ardaydaba in ay siyaasadeen ardayda Soomaaliyeed iyo xilalka ay hayaanin ayna ka daayaan siyaasadda iyo kala tafaraaruqa. maanta ma aha maalin la siyaasadeeyo ma ahan maanta maalin la kala guro. maanta waa maalinta gacmaha isqabsan lahayn waa maalintu istaageeri lahayn waa maalintu gudoomiye kasta ama mataqaanaa arday kasta oo dalka Uganda wax ka barta uu taageeri lahaa walaalkiis. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa safaaradda oo ka qayb qaadatay dhismaha iyo isugeynta ardayda Soomaaliyeed maadaama ay tahay marjici loo laabanayay ahna meeshii laga unkay oo mataqaanaa laga sameynayay ururka iyo dhammaan gudoomiyaasha jaamacadaha. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan gudoomiyaasha jaamacadaha sida wanaagsan oo uga qayb qaataan mar kasta oo ay u taageeraan ardayda Soomaaliyeed. ardayda Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa inay ka qayb qaataanin taageeraanin gudoomiyaashana dhiirigelin u noqdaanin. maanta iyaga loo baahan yahay in ay gudoomiyaasha la shaqeeyaan. haddaysan wada shaqeyn iman meeshii wax imamayso mataqaanaa in guul la gaaro. aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaantiin. waa Yuusuf Cabdullaahi Sugaal
kana gudoomiye ka ah jaamacadda Makerere University oo public university ah oo jaamacadda Kampala ku taalo magaalada Kampala dalka Uganda ku taalo baryahan dambe waxaas ka soo jiray jiro tashwiish ay dadka qaar oo gudoomiyaal iyo arday sheeganayaan ay arrimo qabyaaladeed ay rabaan inay ka dhex furaan ardayda reer Kampala oo lagu yaqaan taariikh dheer oo midnimo iyo horusocod ah laakiinse uu hamigooda u yahay qoladaas yar ee tirada yar ee ardayda sheeganaysa ee gudoomiyaal sheegastada ah ee rabto inay qabyaalad ka dhex kiciso ardayda waxaan kula dardaarmi lahaa tiro numberkaas waa uu yar yahay waxna nagama qaadi doonaan namana qasi doonaan waqtigeena muhiimkana nagama qasi doonaan arday walbana waxaan kula dardaarmi lahaa inuusan gaclo ku lahaanin uusan ka madax banaanaado qabyaaladaas iyo qurunkaas ayna muhiim tahay hogaamiyaasha bariyaan nahay waxaa laga maarmaan ah in waxyaabaha aan ka qayb qaadanayno xitaa Facebook share-ta xitaa waxay qayb ka tahay in hurinta iyo qabyaalad ka kicinta ardayda dhexdooda ah marka waxaan kula dardaarmi lahaa arrimahaas qabyaaladda iyo qurunka ardayda inay saliim ka ahaadaan taariikhdeeni hore ee reer Kampala lagu yaqaanay midnimada in la sii joogteeyo waqtigan adag ee corona iyadoo lagu jirana dadka cibaado iyo waxbarasho inaa ku mashquulsan ma ahane waxa waa xilli aan qabyaalad qof ardaya uu xilligan ku mashquulo ma ahan marka arday walba waxaan kula dardaarmaa in waqtigiisa ka faa'iideysto tirada yar ee rabto ee gudoomiyaal sheegatada iyo arday sheegatada ah ee ka shaqeynayo inay waxa waaye qabyaalad ay ardayda ku kala qoqobaan oo marna safaaradda ku dhagan marna gudoomiyaal kale ku dhagan marba qurun la dhex wareegay ardayda waxaan dhihi lahaa ka waantooba idinkuna waqtigiina qaaliga ka faa'iideysta waxaad tihiin mustaqbalkii beritoole oo dalkan u aayi lahaa waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم أنا واحد سلام يا أرضي الصومالية دي كل قن كمبالة أنا مسؤول كنهاي وحوش شيء إن قمر من الدور الشدي SSU أو قبقابة دي أودنو لما قدومياش سجال قدومية قدومياش كلام واحد يروين إنه قبطان دور الشدي SSU أرضينا وحوش شيء إن منطقنا إنا ودنو قبقابة دي سيدي وفينا إن أرمنا إنا قبنا الدور الشداس ولو كورونا فيروس وصار حق على إن قبطان الربيع لكن كورونا فيروس أنا صار حق علي إن شاء الله كورونا فيروس كدب حدا روح ديارنا قبقابة كورونا فيروس كدب من وحارمنا إنا قبنا الدور الشم منطقنا حر وحلال وقفل بمنطقنا وكسبها منطقنا قف كسبها وكسبها عدك قدومياش أما أرضيدا marka waxa uu sheegaya ardayda Soomaaliyeed inay mintaqana casharadooda iyo mintaqana ku mashquulaan iyo imtixaankii ay iska sii diyaariyaan after corona waxa waaye waqti dhow waxa la rabaa in jaamacadaha la furo marka waxa uu sheegaya ardayda inay gudoomiyaashu midaysan yihiin oo mintaqana ay hal yihiin ayna rabaan mintaqana ardayda Soomaaliyeed sidii wax ugu qaban lahaayeen iyo safaaradda anagu wada la xiriirayna safaaradda anagu ku xiran safaaradda iyo SSU amaadsantiin أنت مجاعي وأشكر أبوك أشكر قدوميها جامعة كامبالا يونيفرسيتي ما أنتوا عرب إن كهل من نمط قدوميها شيء أرضي ضل كيوان وحكبرته وحالك إذا كشجع ما أنت إني يهين قدوميها جامعة ضل كيوان لما أنتوا قدوميها شيء إني وذا ميدسين يهين يقديهن قدوميها الميدسين وكم ميدسين بعض وحبرشة وحترك أرضي قدوميها شو يهين نسيدو كله أرضي وحكبر ضل كيوان لما أنتوا من قبل من مجاله إني كل جد يهين أرضي ميدسين ومروا معنا وحاول كتشتو وحبرشة وأرضي كوبهوبي بعض وحبرشة وأرضي وكل قيب سنة قبيل وحيالات يتفرقوا يسلح كجرن مركي الله في رحلة هوري حلقان أرضي يقدومياش وأرضي يقدومياش اسكو حرن ومن ما كده حيسو ولا شقين كده حيسو ومروا البن معناها وتاجن إنه ولا شقيان أرضي يقدومياش وده وح أرضي أوبا كعاويان لك سفارة هاتو لك مجالات وح أوبا هذا لما أنتوا وحاول أرضي آديات اسكو حرن مروا البن كشقين من مدوده يحتركوده وحان مروا البن كان وباقي أرضي يقدومياش إنه سيد اسكو حرين ما أنت إنه بيرن اسكو حرنا دان dadka naga dambeeyay ama gudoomiyaasha ama leaders ka noqon doonaan inay saan ardaydu ugu baraarujiyaan waxtarkooda iyo midnimadooda ay mar walba ka shaqeeyaan waana salaamintii wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh